kulanti waxaan u xiisaa dhamaantiin akhyaarta hawada naga daawanaysaa daawada ku soo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelanayo deeqa aadan muuse deeqa afro oo kamid ah fanaaniinta sida weyn codkooda maalin aad u tiro badan ay dhageystaan heesaheeda iyo sidoo kale fankeeda deeqa ayaa dhawaan waxay soo saartay muuqaal video ah oo shacabka Soomaalida oo dhan meel walba ay joogaan daafaha caalamka ay runtii muran fara badan ka dhexleeyay hadaba waxaan leeyahay deeqa ku soo dhawo marka koowaad TV-ga dalmar walaalo mahadsan tahay waan dhawahay waana kaaga mahadcelinayaa deeqa afro sidaan hore dhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aad ay u hadal hayaan balorta waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad u soo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aad uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii dalmar walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii أنا كنت تلقلين سي أنا كنت تلقلين بقولعي سي أنا كنت تلقلين بالله ضوي سي أنا كنت تلقلين وقبحي هذا ما كان نسوا نقولنا إن مركز هذا ما بالرياكشن كي كان الشيء أما دتكو إن فكر محاد كان نسوا نقضي إن مركز تدوين هاي كهرلين مقال كاس شكته إنه سخلة ضو بحي والله دقود قف بس بقوها الله dadkeena Soomaaliyeed waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay dadkiisa abuurtay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim Ilaahay qofkii turjubaan Ilaahay uma baahna qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh tarbiya leh bini aadamtinimo leh aqlisan aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda leedahay marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxa dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo admadina doonka loo soo diro leeyahay diinta dadka ku ciqaaba qofkiina marka dadka intooda badan dalmarow inta cariiqsadaan bay yiraahdaan madiinta laga leeyahay waa maya ma dalka laga leeyahay waa maya ma Soomaalnimada laga xiga waa maya ma dhaqan ba laga xiga waa maya hadaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa laakiin anigu taawan ka duwanahay subhanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqor tilaaban dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd de waxaan leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahnay adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo inaan iska lumin deeqa markaad ka reebto reaction ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan haato ama heesa ka horreeyba haato iyagana maxaad ka leedahay thank you dalmar walaalo waxa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waan ida cafiyay sababtan idin cafiyeen waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cudurdaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow in cajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor horta aniga noloshayda horta anigu
media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yidhaahdaye problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha keliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxaa jirta videogaas dalmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay booliska Sweden waan tusay waxaa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii 2 indhoodba iska soo xireen baaskoolad buu muday hal midba baaskoolad gacanta ku haysta midna halka buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay naya deeqa heesta biir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saas xog buu baaskoolada u xiray fiidiyowgiina wuu damiyey ajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyey arrintii way ku jiraan xitaa leyrka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaaciyo ma jirto bilaash qof la iskaga hajabay ma jirto marka qof gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada ee maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarto oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa in madaxweyne kugu garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markaan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arkay xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ka ooyaa fahmaysaa marka intaas anagu rekooroni ku soo saarnaa sayga inta badan aan samaysta kafee yaraan soo shubtaa heest aniga la igu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen aan samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusneed haday jirto bilis la soo xiriirgelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin I have to deeqa in afro imika in hanjabaad naftaada aba kugu timi sidaynu ognahay sharciyadan westernka deganta waliba dalalka Scandinavian-ka haweenkana xuquuqdooda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay ee aad soo saartay hadii uu u gacan galo in media-da European-ka ama Scandinavian-ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hanjabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian-ka oo kale oo la oranayo inantan bal eega waxay sameysay waa inta in jirkeeda soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timi adigu haddii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacayay dadka Islaamka iyo Soomaalida may walaalo may taas ma noqonayo ilaahay baana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amuurahayga sida kale inuu igu fududeeyo anagu wadankan waa deganahay sharcigan ka haystaa Swedish baanahay guriyada waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax inta ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhaxyaacayaan dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxa jira meel u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yaryihiin intaas waxaan dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahanti ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad Islaama baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka isaga mashquulsan yihiin anigu waxaan hay baan bandhigaa fahanti waxa weeyaan taani igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana inta aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa dega markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkayga wada tagay hanjabaadahay waligeeyna meelahaas ku arka meelaha lama kulansiyo marka inaan haddana maxaa la yiraahdaa arrimahayga u geeyo ama Soomaalideena waxa anigu waa iska cafiyay waxa la ii dhiman waa cafiyay laakiin
wixii aniga hadda i record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabayay meel bay yaalaan taas adduunka hadda daa irada waa cafiyay xitaa idiga yeelaysa qoladaas male sababtaa kuwii 2 sano kahor kuwii haddana waaba iska cafiyay wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagiyo ama hal caawiyo dhibaata xagga naga haysatay waan seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aan u geeyay 2 sano kahor bay ahayd waliba 2 sano way ka badnayd dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqda waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga kaas ku ekaada faad arada la soo xiriirta dhibaato arko marka anigu tasaasana u jecelayn ba afaarahayga waxayga iyo ma fahmaysaa haddaan ka badan waayo of course shaqada waa la kala leeyahay haddaan amni xumo dareemo anigu waxaan ku khasbanahay inaan u tago inaan hala caawiyo of course ila tabarka lama haystee laakiin caadi ahaan inaan anigu hawlahayga waxaan dhex Soomaalida dhexdeeda aan anigu runtii aan iyo dhibaatadan aniga hadda ay haysata inaan ula tago hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaal waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabi geeyo oo haleegala caawiyo lagama yaabo fahmaysaa marka saale waxay taano dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteeda waan jeclahay marka dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya muslimiina soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadeedu gaarto ma fahmaysaa marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga dareemaya kiis culus weey laakiin Soomaalidu way iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay deeqa markaad hadda horta waan ka anigu markhaati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan dad badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aanad dadka ku wanaagsan aanad ahayn ama ba yaqaana waana dad darisaho intaa wada socday nolol fara badan wax badan dadka waxay yaqaanaa aad iyo aad taas waan kaaga markhaati kacaya qodobka aan haddaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo ee kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay haddii aan qaar kamid ah aynu halkan akhrino dadka qaar waxa ay leeyihiin deeqi way kor bay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer waxay gaadhay ay operation isku samayso si ay xubnaha jirkeeda qaar kamid ah ay u muujiso quruxdooda iyadana comment-yada maxaad ka leedahay dalmaro horta أدير قصص. ما يورت وعن قصلي صرت فلحنت من موجو وأنا أركي وحاسة إنها قرقرين لكن تعو حن كلاه هاي إن أنا وضن كان ودقنا هاي رنت هذا كهذا برنامج شو حن كقيب جلاء أو تربضن وحيالا بدر دليل اللي هو عيقلنا يعني كقيب جلاء مر والبا مركا وحيالا أنا قهرت أنت بدن أن كدول أو أن رنتي أن أدك حاجة أصارة واحد هاي وحن استعمالها هالكلمة أو أهو وحقتها qofka aad tahay ahow aan waan jeclaa qofka wax uu yahay xitaa waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo oo dad kale soo eeg ma garanaysaa marka ahow waxa aad tahay fikrad anoo isticmaalay ereygaas diyaanadoo kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisi wax la mariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaasado waa ka waaniyaa qofku inuu qof fikrad isku socdo waa necbaa runtii waa ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii in anigana operation isku galo إله محمد سبيان كل أرتين ولا شيء دينا شركة إنه operation لقوا سمين ولقينا أنا كفكري لا ما كان مكان قال ما بهني قضب كأقدم بيه يضنا أكاوي دي فيديو قاسي أتصل تدك واحد ليهن واحد بلعبته أو أي دقيقة أفرع أي وضد أفرتي 2019 كوحي كدم بيه يقولي سبب إن لا أكيد دانو دد آدو ترى بدن أو فيديو يو هيت أهو دد أي آدو كقيدين صار دانا ميادو برودة مركا مياد دريمة ساكل مداس ما وما بلابن إن أنا بلابنا مرة بس أوطى وحن أنا جوهرتها مرة والباب وتاجنا وعن شعلاء إن خلد مرة وحن أنا تاجنا وحيتها ودقن كيجا وحن تاجنا وحيتها وقد يدي ذا نوع عليها تاسنا ودين كيدا تاسنا إن خلده أو تصالح النقضة إنه من الرجالي رنتي هذه أي قارصة صارا محد كله هذا يسوى صارا وحنا كلها ترين لا ولا لسه كده وشو أنا يقول عضاي أنا جاي يقول إكاتي إذن كنا هيصرفيني ينصص صالة يدي رفيني عشان الله يصرفها يعني أصلا ليه لا كلي من الرجالي سيدا كلا كقفي عمل سانا هذا بعد كتبنا حكوا صارا والله
sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray baa la yiri dayoy xageed ku baratay cadaaladda masay tiri isha cali ka laalaada marka in waxaad leedahay usha cali u dhacdo si fiican la la isha cali ka laalaada ku qusqaatay way usha deeq afra ku dhacdaa ku qusqaatay وقالوا لي فيديو يلا كلا صوصا ما مؤمن يعني ugu dambeyntii waa waxyaaba daran qof xisleed ama lagu yiraahdo tiiba oo horseeday deeqa aad baan ku salaamayaa kaagana mahadcelinayna waraysigan macaa halkan ugu siisay ugu dambeyntii deeqo maxaad ku soo gabagabeynaysaa waraysigeena kooban ama aad leedahay dadka ku daawanaya iyo dhammaan taageerayaashaada intaba dal marow dadka horta i daawanaya dhammaantood waan salaamayaa sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa waa inoo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn oo baaxad weyn baan digu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxaa iska jira soomaalidu dhinacay u badan yihiin ahoo runtii aan aada u xuubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibayaal ilaahay idinkana hayd soo hanuushee waxubsada wax walba xogogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hubi maxaa la yidhaha xogogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xugminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimaan isku leenahay haddaanu dad nahay bini-aadanimada horta tii ilaahayba intaan la gaarin soomaalida bini-aadanimada lumisay war bini-aadanimadu waa beeska ugu horeeya taa dhis fahmaysaa intaasaan kusoo gabagabeyn lahaa walaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay deeqa afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay deeqa aad iyo aad baan ku salaamayaa inaad barnaamijka igala qaadatay thank you very much dalmar walaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aad u qiimo badan horta haddaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidaan walaalahay u jeclaa oo kale ku jeclaa halkaasaan ka jeclaa qalbaan kaasi jeclahay runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaali ah oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay deeqana waa taasoo waa idin cadaysay videogiina waa laga saaray baad mar igu tiri video allah thank you dalmarow aan sii dhamaysto video horta waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay maan raadinay israadinay waqtiga nagu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulilah waan helay videogiina waa laga saaray videoyada dambe kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaan iska tuura waa ka codsanayaa waxaan kaloo dalmaro aan sii codsanayaa waxay tahay dad waxaa jira pages samaystay deeqa afro ah anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse oo soo gaaban keliya ayaan leeyahay page baa waa dhexe wiilii sameeyey pagekaas bil ka hor baa ugu dambeysay in wax lagu sheer gareeyo waxaan hadda siyaacaya oo meelaha maxaa la yidhahdaa xaggan baqaar waxaan arkaya leentay sawiradeeda soo qaataan waxa idin soo wadaa ka daran yaa isgaaray walaal waxaan leeyahay dadka hay u dirina iska tuura iska dhilad gareeya iga balooga dadkuna waxaan leeyahay caawiyo sidii beejadaas oo aniga imataliyo beenta loo tuuri lahaa youtube-yadana loo kala tuuri qof kasto anigu horta wayda cafiyey laakiin iska bixiya youtube-yada qof kastoo youtube-ka gashatay iska bixi haddii kale cafiskaad qayb la soo noqonayaayo waan ku dacweynaya aad baad umahadsan tahay waa facebooka deeqa oo dad badan youtube-yadaba dhammaantood iga saara wixii hore bik waxaan soo wadaa ka daran bay ku qorayaan maya xitaa fanaaniinta caayayaan waxay leeyihin blaaye aniga yaa khatarsan tartaba yani meelahan waxaan aniga iga suurta ma qof mateli karaa qof ma mateli kara aniga ma mateli kartaan anigu hadda maanta dalmar ma mateli karo leesma mateli karo marka dadkana waxaan leeyahay markaad aragtaan qof oo wax qoraya walaal dadku waxaad moodaa mararka qaarkood soomaalidan waxaa isdhaha tolo maxaa horey ka qayb qaadanaya ma isdhahayaan ma qofkiiba ma qof kala war waxaan fanaaniinta meelaha la carcararaya ma ahan iyagii anigu horaan ka gartaa fur gudaha gal arag inaga daaya walaalayaal waxaa iska hor carcaraysaa iga daaya aniga ma aha anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse xataa deeqa aadan muuse samaysteen afro iyo real iyo gadaal ka raaciyeen magacuu isbedelaya wuu ka ogolaanaya facebook mogtaa aniga kayga pagekayga bil ka hor baa ugu dambeysay oo wallaahi oo bilaahi inaan wax ku sheer gareeyo iga daayay dadka ay ku jirine aad baad umahadsan tahay daawada halka waxaa nagu dhamaaday waraysigii koobnaa
وأنا أوري ضلمر يدقى أفرو يبلغ قاعدة برنامجك سلا أي نبت قليل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.